isku soo baxyadii xisbiyada mucaaradka Somaliland ku baaqeen inuu ka qabsoomo gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee Somaliland waxa uu maanta magaalada Boorama uga qabsoomay si ka duwan gobolada kale ee Somaliland kuwaasi oo mudaharaadadii ka dhacay gobolada qaarkood ay sababeen dhimasho iyo dhaawac xarunta xisbiga dhexe ee wadaniga ee gobolka Awdal waxa si wada jir ah maanta isku soo baxay taageerayaal taabacsan labada xisbi kuwaasi oo watay boorar ay ku qoran yihiin erayo ka dhan ah xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isku soo baxan waxa hogaaminayay musharaxa madaxweyne ku-xigeen iyo mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ee gobolka Awdal waxana ay halkaasi ay kala hadleen dhammaan taageerayaashii kala duwan oo ay sheegeen inay doonayaan in doorashadu ay sideedii ku qabsoonto waqtigii loo asteeyay waxaynu doonaynaa doorasho xor oo xalaala doorasho 13 November 2022 soo doorashada 13 November ma rabtiin madaxweyne waxaan ku leenahay wixii siyaad barre laga diiday ee mingista xayle maryan laga diiday adigana laga yeeli maayo xusbiyada labada xusbi ee mucaaradka iyo koobudaysan waxay doonayaan isbedel la taaban karo shacabka waxaan ugu baaqaynaa mudaharaadku maanta inoo bilaabmay uu soconayaa ilaa iyaha uu dhacayo muuse oo kursiga dhaafaya askarigaasi waa la wadaya ma joogsanayo marka bulshada waxaan sheegaynaa boolisku dib inaguma hayaan ninka askariga qof xabad ku dhufanayay halku jooga waa qabiil buu noqonaya kuma dhufan karo taa waa inaad iska dhaadhicisaan innaguna magaaladeennan ilaalinaynaa qof kastaba waxaan doonaynaa inuu soo baxo bulshooyinka reer wadani haddaan nahay doorasho xil iyo xalaalaan u baahannahay 13 November muuse xilkaagii uu dhammaaday si sharaf la noogu qabo bulshada Somaliland waxaan u sheegayaa dadkan ceebaha iyo fadeexadaha xisaabta qaranka kula meeraysanaya mucaaradka inaynu iska dulqaadno heeriyadooda waxaad arkaysaa xalay toole magaalada Boorama aqal iyo askari baa loo qaybiyay aqal walba askari baa hor joogay waxaad ogtihiin in internetkii la gooyay si aan caalamku u ogaanin waxa dhacaya oo aan loola soconin taasina waa caburis waxa weeyaan magaalada Hargeysa bartankeega diyaarad baa taala diyaaraddaasi waxay ahayd tii Hargeysa ka kacaysay ee Hargeysana duqaynaysay berri toona Muuse Biixi tii teedii uu isticmaalayaa waxay noqonaysaa in sawirkiisa suuqa la dhigo waayo waa tii la diiday ee diyaaraddii Hargeysa ka kacaysay Hargeysa duqaynaysay buu wadaa askartii iyo ciidankii nabadgelyada ee qarankani ayuu shacabka u adeegsanayaa markaa beddelkeedii buu joogaa waxaan doonaynaa waa doorasho soo maaha waa doorashaan doonaynaa doorashada in xilligeega wakhtigeegii lagu qabto waxaannu ugu baaqaynaa madaxweynaha iyo dawladda inay si degdega uga shaqeeyaan doorashadii siday wakhtigeega u dhici lahayd dadka maanta halkan jooga waxay taageero u yihiin ama u soo bannaanbaxeen ama ay cadceedda u joogaan doorasho xor iyo xalaala in la qabto madaxweynahana waxaa laga doonayaa dee madaxweynenimada wuxuu ku fuulay doorasho ma ahayn xoog kumuu qaadan xeelad kalena kumuu qaadan madaxweynaha waxaa laga doonayaa inaanu ciidamada maaragtay Somaliland inaanu u adeegsanin xisbiyada iyo shicibka ay ciidanku ka mid yihiin maanta waxa weeyaa waa maalin qiimo iyo qaayo weyn dalka iyo dadkaba u leh dhalinyarada u leh adduun weynaha oo dhan u leh maanta markaa waxaan leeyahay hambaliyo rayigeennina waan hirgelinaynaa maasha Allah madaxweyne dib u dhagayso wixii aad ku hadli jirtay markaad mucaaradka ahayd waxaad rabtay baanu rabnaa wixii bay ummaddu rabtaa laga yeeli maayo wax ka duwan waxa la rabaa mudaharaadka la diidayaa waa kii aad samayn jirtay wixii aad diidi jirtaanu kaa diidana adigana taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid ayaa banaanbaxoodii si nabadgelyo ah ku dhamaystay xarunta xisbigaasi kuwaasi oo ciidamada booliiska iyo mas'uuliyiinta maamulka gobolka Awdal lagu ammaanayay hanaanka nabadgelyo ee uga qabsoomay mudaharaadkani Axmed Iriya Ciltire warbaahinta SBC Boorama.